ومركل إيو بقر كفرحدا مانتا إيو سبانادان dambe waxa sii dhumaya milgihii uu lahaa xulashada haweenka waxa uuna isku sii dhalan rogaya midkii reer galbeedka waana mid ku soo koobmay oo kaliya waa ku arkay waana ka helay guurkii hore ee Soomaalida waxa uu ahaa mid muddo dheer qaata dhisidiisa xulashada gayaanaduna waxa uu lahaa halbeeg lagu miisaamo iyo dhinacyo badan mana ahayn mid ku kooban oo kaliya waji iftiimaya iyo muuqaalse waxa lagu qaadan jiray gabadha garashadeeda garaadkeeda dulqaadkeeda xurmada quruxda diinta iyo qoyska ay ka soo jeedo gabadha aad haasaa wadaag tihiin balse daawade haddaba gabadhan garashadeedii iyo garaadkeedii aaway midkii diineed aaway haddaba mid aan ku xasuusiyo gabaygii abwaan aw yuusuf waxa uu ahaa guduudo looma raaca haween gabalba waa cayne bidhaan gabaygeeda ka laalaada waa lagu gululmaaye يا سلام قروح بدنان قروح ذا قفكو ما أها عدان علماء لفقرتاه أو قادة دكتا قروح ذا وحا أي كشيغان صدن إيا لبصفو وأين يرتهي جبر كوبتا صفوين كاسي أو إدل سيدو كلي رقناه مدبا صفقارا أجعل هبلها بلس صفوين كاسي أو إدل منكو مجرو مدبكا حسا أهاتي قبدها مدو وقروحون ومدها وإقمس إيديتكا إيا وليبا مارين دلالك حيقا balse aniga igu hootixdan gabar dhowr tilmaamood ayaa sababa guurkeeda mid baa quruxda lagu guursadaa oo lagu goobtaaye midna magaca qoyskay gashay guur lagu mutaaye midna gunada ee heesaa ka gala damace midna waxa gayaankaaga ka dhiga garasho diimeede goofow si gaara u ogow tan ugu gadaalaysa gurigaaga yeysan galin hadday gabri diin beesho gayaankaaga ma ahee ka durgabi ahaanteeda daawade waa la jan socdaal oo kule quruxdu waa diintuna waa asturnaan iyo doorsanaan sidaas darteed muuqaalka la gray oo shargaray una soo biir bahdeena boqran ee boqorka farxada ee baween ayaa boqorahe bye bye Alfursan Dental Clinic hoyga daweynta afka iyo ilkaha waxay xarun cusub kaaga furtay agaarka sayidka ka soo horjeedka hotel wehliye ku xiro ilkahaaga $7 kor iyo hoos wixii faahfaahin kala xiriir nambarka shaashada